gacan u qaaday waa uu feeray waa uu ceejiyay madaxa xataa bursi uga garaaceen marka waa kana ninkan Abduqaadir Jiile lahaa waa kaasa meel walba oo aad ku aragto dhigiisa waa ku banaanya ilaahayna waxaan uga bariyay calaama al aqoon inuu ka soo saaro ilaahay waxaan uga bariyay dhibaato oo san waligiis ka bixin inuu lugaha la galo nacladii ilaahay ha ku dhacdo nacladii islaamka ha ku dhacdo waa kaasa ninka gabadha gacanta u qaaday kii hore ee gabadha kufsaday baan wax laga qaban kanaana ugu daray kii horena insha Allah asne waxa way ilaahay baa ka jari doona haduu nool yahay ilaahayna cimriga u soo dejiyo labadooda cimriga ilaahay u soo dejiyo kansar aan bixin Allah ku dhammaantiin habaara warnimankan waxay u barteen inay gabdhaha qaawiyaan waxay u barteen gabdhaha inay dilaan waxay u barteen gabdhaha inay kufsadaan waaba niman soo dhigtaba warnimankan wax la xisaabtama la waayay wax la xisaabtama la waayay hal nin oo gabar madaxeeda u dhinta ma la waayay hal nin oo geesi ah oo 5 xabadood ku dhufta kuwa gabdhaha maalin walba kufsanaya kuwa gabdhaha maalin walba u gacan qaadaya ma la waayay hal nin oo hoosaan soo afjar ma la waayay hal nin haddii god u gali lahaa gabar madaxeeda wajiga ilaahay inaan la arki lahayn aan qoor warahayna annaga Soomaali hadaana warahayna war hal nin oo suuxiya hadii la heli lahay shan dhag bas waa istaagay waa kaasa ninka gabadha dhibaatada u geystay hadaad fahmo ka naxayso hadaad gabdhaha Soomaaliyeed ixtiraam u hayso haday gabar kula dhalatay ninkaas haduu Kenya ka tagay oo ka baxsadane Muqdisho u tagay Muqdishona waaba fursad hadii Kenya uu joogane waxba ka qaban kartaa Kenya iyo Soomaaliya meeshaad ku aragto bakuleedahay sharta aad la kulantana aqbal adaa afaarahan doontay adaa gabadh islaameed oo walaal leh waarid leh hooyo leh aabba leh dilay aday ku tala gabadhiya sugayna asxaabta